wafdi oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ambabaxay magaalada New York iyagoona ku sii jeeda dalkaasi Mareykanka oo ay kaga qayb gali doonaan shirka guud ee qaramada midoobay. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa faahfaahin ka siiyay warbaahinta qaranka safarka wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. maanta waxaa ka dhoofay diyaaradda Aadan International Airport ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kheyre wafdi uu hogaaminayay ka tirsan golo wasiiro iyo xubno ka shaqeeya xafiiskiisa ayagoo sii jeedo dhankaas New York soo uu qayb gal shirka qaramada midoobay ka dhici doono bishan September marka wasaarahana waxa xagga khudbada ku leeyahay wuxuuna halkaas ka soo jeedin doonaa khudbad ku saabsan horumarka ay gaartay xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliyeed taasoo ah xagga siyaasadda amniga horumarka is xisaabtanka sidoo kale maanta waxaad arkaysaa inuu ra'iisul wasaaraha raacay diyaarad flight commercial ah ama Juba Airways oo Kenya u raacay iyadoo taasna ay horseedayso in dhaqaalaha la beeqaamiyo ama waxun la seef gareeyo marka aad iyo aad u mahadsantahay.